halkani waa BBC waxaan idin kala hadlaynaa mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar Facebook iyo internetka oo cinwaankeenu uu yahay bbcsomali.com kulan wanaagsan meel walbo joogtaanba Afrikada bari saacadu waa 5 galabnimo oo go'a barnaamijka qodobadan idinku hayana waxa kamida Hirshabeelle oo la magacaabay guddi farsamo oo ka shaqeyn doona soo xulida baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle baarlamaanka cusub kadib maxaa dhacaya doorashadu markii baarlamaanku isu yimaadaan sida uu dhaqso badan waxay dooran doonaan haddii ilaahay yiraahdo in guddoogooda ay dooranayaan waxaa laga rabaa 17 Oktoobar ama 18 in ay doortaan madaxweynaha inay doortaan waa suuragal in farsamadu ay maalmood wax dib u dhigto midowga Yurub oo u goodiyay dawladda Turkiga oo la sheegay inay baaritaan shidaal ka wado badda Mediterranean-ka hadaba murankan cusub ee Turkiga iyo midowga Yurub muxuu salka ku hayaa falanqeynayaan idinkaga haynaa sirdoonka Itoobiya waxay sheegeen inay qabteen dad doonayay inay si qaldan u isticmaalaan telefoonada Itoobiya dalka Djibouti 10,000 oo arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka shahaadiga jaamacadaha loogu gudbayo ugaaskii dhawaan laga celiyay xadka Somaliland oo BBC-da uga warramay sida ay wax u dhaceen waxaan tagnay qoraya cawl 12 subaxnimo ciidan diyaarsan oo RRU iyo hub badanna wata ayaan ku tagnay baaro iyo jigooyo ayay nagu sameeyeen halka ma dhaafi kartaan bay nagu yiraahdeen xubintii ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan idaacadana waxa wadajir u soo wada saaray Cabdiraxmaan Xaaji Cadow iyo Axmed Mursal aniguna waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh dunida iyo maanta balse intaas oo dhan aan ka hormariyo warkii caalamka Bashiir Maxamed Maxamuud Caato ayaa inoo haya mahadsanid Cabdirasaaq dawladda Belarus ayaa ruqsadda shaqo la noqotay ku dhawaad 10 wariye oo ka warramaya xaaladda wadankaasi wariyaasha ayaa waxa kamid ah kuwa u shaqeynaya hay'ado warbaahin oo caalami ah kuwa maxalli oo ka howlgalaya gudaha wadankaasi wariyaasha ruqsadda laga noqday waxa kamid ah kuwa ka tirsan wakaaladda wararka ee AP television laga leeyahay wadanka Jarmalka iyo laba wariye oo ka tirsan BBC-da kuwaas oo u shaqeynaya laanta Ruushka talaabadan ayaa waxa ambaariyay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Austria BBC-duna waxay sheegtay in ujeedada laga leeyahay arrinkan ay tahay sidii loo hor istaagi lahaa saxaafadda madax bannaan wariyaha BBC-da ee Minsk ayaa ku soo warramaya in talaabadan ay tahay ay timid xilli rabshado ka dhashay doorashadii lagu murmay ka taagan wadankaasi Belarus ciidamada booliiska ee wadanka Sweden ayaa xabsiga u taxaabay dad gaari 20 qof kadib markii dibadbax ballaaran oo ka dhashay kitaab quraan ah oo dab la qabadsiiyay falkan ayaa ka dhacay magaalada Malmo waxaana lagu soo warramayaa in rabshadahaasi ay ka dhasheen khasaaro baawur badan dab la qabadsiiyay baabuurta dabdamiska iyo kuwa gurmadka degdega ayaa sidoo kale la burburiyay waxay dawladdu sheegtay in dad gaari 300 oo qof oo u badan dhalinyaro ay ka qayb qaadanayaan rabshadaha booliiska caasimadda Jarmalka ee Berlin ayaa dadka ku banaan baxaya fagaaro ku yaala halkaasi ku amray inay kala hoydaan mas'uuliyiinta wadanka Jarmalka waxay sheegeen in dadkan ka qayb galaya doodbaxa oo lagu qiyaasay 80,000 oo qof ay jabiyeen talaabooyinka la soo rogay oo ay kamid tahay kala fogaanshaha booliiskuna ay ku qasban yihiin inay kala eriyaan dadkaasi banaanbaxan ayaa lagu soo warramayaa inuu yahay mid nabdoon inkastoo ay jiraan isku dhac dhex maray booliiska iyo dadka qaar qof kamid ah dadka ka qayb galay doodbaxa ayaa sheegay in xorriyad doon ay yihiin waa hagaag wax kasta way cad yihiin bilihii u dambeeyay waa ay adkayd inay cid xanuunsato dadka xanuunsanaya ee cisbitaalka lagu baananayna waxa ay tiradoodu ahayd ilaa 200 ilaa 300 tiraduna marba hoos ayaa u sii socotay isla sidoo kale waxaynu sameynaa baadhid aad iyo aad u tiro badan xayiraadaha jiraana xaqiiqatan waa ay ka daran yihiin waxa jira doqonnimadani waa inay dhammaataa oo dadka loo ogolaadaa noloshii caadiga ahayd mar kale taasi waa waxaan dalbanayo dalka Koonfur Afrikana waxaa xabsiga loo taxaabay laba sarkaal oo booliis ka tirsan kadib markii ay dileen qof qaangaar ah oo qof aan qaangaar ahayn oo naafa Nadine Julius oo 16 jir ah ayaa waxaa toogtay ciidamada booliiska xilli uu buskeed ka iibsanayay dukaan ku yaala magaalada Johannesburg qoyska ilmahan dhintay ayaa waxa ay sheegeen in booliisku ay toogteen ilmahan naafada ah kadib markii uu ka jawaabi waayay su'aal ay weydiiyeen dilka ilmahan ayaa dhalisay carab baahsan waxaana gacanta isula tagay booliiska ee dadka careysan falkii dhacay
dowladda Turkiga waxay sheegtay in ciidamada badda ay dhulatus ka sameyn doonaan bariga badda Mediterranean-ka xilli ay taagantay xiisad ka dhalatay gaaska iyo saliidda dalkaasi uu doonayay inuu soo saaro. Dhulatuskun oo ah mid socon doona muddo 2 toddobaad ah ayaa la sheegay inuu ka dhici doono waqooyiga galbeed ee Khubrus, halkaas oo dowladda Turkiga ay muddooyinkii dambe ka sameynaysay sahan shidaal oo ay ku kala boodeen waddanka Giriga. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa uga digay Turkiga inuu wajihi doono cunaqabateyn haddii uu sii wado waxa uu ku tilmaamay ficilada gardarrada ah ee bariga Mediterranean-ka ay ka wadaan. Hadalka sarkaalkan siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub ugu sarreeya ayaa yimid kadib kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Midowga Yurub. ugu dambeynna madaxweynaha dalka Imaaraadka Carabta Sheekh Khalifa bin Zayed ayaa soo saaray dekreeto madaxweyne oo lagaga noqonayo xayiraad ganacsi oo muddo ka badan 20 sano saarneed Israel. Talaabadan ayaa waxay qayb ka tahay dadaallada labada dal ay ku doonayaan inay ku soo nooleeyaan xiriir diblomaasi waa xiriirkii diblomaasi ee ka dhaxeeyay kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay gaareen Abu Dhabi iyo Tel Aviv. Ujeedada talaabadan hogaamiyaha Imaaraadka ayaa lagu sheegay inay tahay mid sare lagu qaadayo iskaashiga dhanka ganacsiga ee labada dhinac. Warkii caalamkana waa nageynta. بشير محمود عاطو oo warkii dunida BBC dana la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. galab wanaagsan mar kale meel walbo joogtaan. dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa magacaabay guddi farsamo oo odayaasha dhaqanka kala shaqayn doona soo xulista baarlamaanka cusub ee Hirshabelle iyadoo muddo-xileedka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ay ku eegyihiin bishan Oktoobar ee sanadkan aan ku jirno ee 2020ka. Maxamed Cali Caadle wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabelle ayaa waxaan weydiiyay shaqada guddigan ay qabanayaan. guddigan waa guddi farsamo oo la shaqayn doona haddii la ka raali noqdo odayaasha soo xulaya baarlamaanka labaad ee Hirshabelle odayaasha soo xulaya ayuu la shaqeynaa waa guddi farsamo oo odayaasha inuu la farsameeyo loogu talagalay waaye guddi shaqo kala qabanaya ama awood kalena ma aan wuxuu la shaqeynaa oo kaliya odayaasha soo xulaya xildhibaanada qoladaas uu farsamahan ula shaqeynaa. guddiga doorashooyinka goorma la magacaabaya yaase magacaabaya guddi doorasho oo hadda doorkan haddaan la joogo guddi doorasho ma loo baahna maadaama ay xulitaan ay tahay guddi doorasho looma baahna hadda waxa soo xulay odayaasha waxay soo xulayaan baarlamaanka haddii la dhaarin baarlamaanku asaga gudoonkooda iyo madaxweyne ku kuwaasa dooranaya marka guddi doorasho oo hadda la sugayo ma jiro. goormay bilaabanaysaa soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Hirshabelle sida ugu dhaqso badan ay u bilaabanaysaa laana anaga waxaan haysanaa oo kaliya muddo hal bil ah 9 Oktoobar ayuu baarlamaanku ku egyahay waxaana la rabaa baarlamaan diyaarsan in uu bedelo baarlamaanka 9 Oktoobar marka sida ugu dhaqso badan shaqadu u bilaabanaysaa hadii Ilaahay raad. baarlamaanka markii la doortana kadib waxa la gelayaa doorashada madaxweynaha oo xilliga ku beegan iyana qaabka doorashadu markii baarlamaanku isu yimaadaan sida ugu dhaqso badan waxay dooran doonaan hadii Ilaahay raado in gudoonkooda ay dooranayaan waxaa laga rabaa 17 Oktoobar ama 18 in ay doortaan madaxweynaha inay doortaan waa suuragal in farsamadu ay maalmo wax dib u dhigto ama maaragtay ay soo hormarto farsamadu sadbasay noqoto laakiin maandeedka rasmiga ah ee Hirshabelle wuxuu ku egyahay madaxweynuhu wuxuu ku egyahay 17 baarlamaanku wuxuu ku egyahay 9 Oktoobar. dowladda federaalka wax door ama ku leedahay howlahan hadda aad bilowdeen ee doorashada iyo soo xulista baarlamaanka cusub ee Hirshabelle. dowladda horta dowladda dhaxa waaye waa laga maarmaan inay og tahay waxyaabaha soconayo oo shaqada in doorasho loo socdo hawsha la qabanayo waa og tahay laakiin hadda wax faragelina ama wax ma aragtay hadda ilaa hadda ay ka geysatay ma jiraan waa iyada laga rabaa inay ma aragtay suurto geliso laakiin hadda Hirshabelle doorashada iyada xur waa wax hadda dowladda faragelino hadda ay ku hayso xaaliyan ma jiraan. maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayuu kaasi ahaa qodobkaasi waxa fikirkiisa ka soo dhiibtay Cabdullaahi Jaamac Oogle burucu jooga wuxuu yiri magacaabista guddiga farsamo ee ka shaqeynaya soo xulista xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka Hirshabelle waan soo dhaweynayaa waxaanan ka rajaynayaa shaqo fiican oo lagu wada kalsoon yahay. Cabdi Salaam Cabdiqaadir Kajoche goldogo buujoga wuxuu yiri maamulka Hirshabelle ee magacaabay guddiga farsamo ee soo xulaya xubnaha cusub ee baarlamaanka aad ayaan u dhiirigelinayaa. hagaag dhawaan waxa xadka Soomaaliland laga celiyay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas oo sida uu sheegay ku sii socday magaalada Boorame ee gobolka Awdal. ugaaska ayaa markii dambe dib ugu laabtay dalka Itoobiya oo caadiyan uu degan yahay. dib u celinta ugaaska ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolka Awdal dadka qaar ay wax ka tabanayaan saami qaybsiga awoodaha qaar ee Soomaaliland. haddaba sidee wax u dhaceen ayaan ka waraystay ugaas Cabdirashiid oo markii hore ka waramaya halka laga celiyay iyo goobtu halkay ahayd.
aroortii waxaan ka baxnay halkan 8 iyo barkii subaxnimo khamiistii 27 August bay ahayd waxaan tagnay Qoraya Cawl 12 subaxnimo markaan tagnay Qoraya Cawl ciidan diyaarsan oo RRU iyo hub badanna wata ayaa halkaa ugu tagnay isbaaro iyo jidgooyo ayay nagu sameeyeen halkaa ma dhaafi kartaan bay nagu yidhaahdeen dhibaatada ma nufilayna anagu khabar muddo baan iskaga soconay ugaas adigu xageed ku socotay oo safarkaaga uu ku sii jeeday walaal safarkaygu wuxuu ku sii jeeday Boorama dadkaygii oo hore aan odayaal ugu diray oo ii soo noqday oo yiraahdeen dhulkii waa diyaar waa lagu soo dhaweynayaa ugaas diyaar baan nahay waxay la kulmeen badhasaafkii waxay la kulmeen dadkii maaragtay mas'uulkii dhulka joogay ayay la kulmeen kuwii nabadgelyada u qaabilsanaa kulli waan 3 oday baan halkan ka diroonay wada soo eega sidaasay marka iigu soo xaqiijiyeen oo ii soo noqdeen kolkaasaan socdaalkan bilaabay oon socday anoo warba anan dhibaatadan ba filaynu baad halka Qoraya Cawl nagu heshay ugaas dawladda ma ogeysiisay safarkaaga maadaama aad Itoobiya ka gudbaysay xad kalena aad u gudbaysay meeshana nidaam dawli baa ka jira nidaam ma ku gasho ma ogaayo dawladda ma ka warqabtay walaal dawladdeena waan la socodsiiyay waxa weeye waa loo sheegay hoggaanka nabadgelyada ee xagga Itoobiya waa loo sii sheegay waaniga ku sheegay xagga kalena odayaal baan diray oo iyaguna nabadgelyadii way soo celiyo waa lagu diyaarsan yahay shacabkii waa taagan yahay baa laygu yiri sidaasaan markaa anigoo nabadgelyada og baan ku tagay ugaas odayaasha dhaqanka ee beeshaada ee dhinaca Somaliland ka sokow Somaliland maamul iyo nidaam iyo haykal dawladnimo ka jiraaye ma u sheegtay inaad xadka gudbayso Boorama ku socoto walaal odayadan aan diray ma arkaysaa xagga nabadgelyada ka soo xaqiijiyay walaal way ogaayeen anuguna ugaaskii reerkaan ahay way ogaayeen taasi waxaan kaaga jawaabayaa odayga xagga Somaliland uu ogeysiiyay maamulkii marka Boorama ugaas waxa la isweydiinayaa maxaa safarkaaga xilligan ku soo beegay Somaliland doorashay isu diyaarinaysaa awdal dadka degan qaar ka mid ah waxay leeyihiin saami qaybsiga su'aal baan ka qabnaa soo lama oran karo ugaaska xilliga uu ku soo beegay safarkiisa waa xilli ay jiraan dad wax tabanaya gaar ahaan reerkan aad saldanada u hayso anigu ugaas dhaqameed baan ahay ugaas siyaasadeed ma yihi dhaqankaahan horeba ku tagi jiray baan u socday bay ahayd wax ma garanaysaa khilaaf keenaya iyo hadday khilaaf uu jirana kii xalin lahaa inaan marjici loo soo noqonaya aan ahay ayaan walaal ku sheegaya ugaas adigu saldanadaada ugaasnimada ma samaroonka degan Itoobiya kaliya ugaas u tahay mise kuwa Somaliland iyo kuwa Djibouti iyo samaroon meeshuu joogaba adaa ugaas oo saldanadii dhaqanka iyo usha u haya walaal aniga dhaqankii ugaaska beeshaas jira buursi meel la meeshay joogaanba anuunba saldanadii kii 19 baan ahay aabahay anaa ka dhaxlay curadkii baan ahay saldanada inta saddexda wadan ay dadkaygu kala duwan ay kala degan yihiinba anuunba ugaaska u ah cid kale oo ugaasi ma jirto laakiin waa kala masaalix soo maahan qabiilkan aad u tahay suldaanka u tahay ama ugaaska isku maslaxad maahan adigu fadhigaagu waa Itoobiya reerka Itoobiya deganeed ugaaska u tahay maslaxadooda hadba Itoobiya waafaqsan tahay inta Somaliland degan Somaliland iyo dawladnimadaas ay hoos tagaan kuwa Djibouti iyo haykalka dawladnimo halka ka jira marka dhaqankii iyo masaalixdii dawladnimo ee ay dadkan ku kala noolaayeen ugaas Cabdirashiid sidee la soo waafajinaya walaal anigu ugaaska kaliya saddexda wadan sheegaysidba u ah ugaaska kaliya uu ah baan ahay kolba wixii dhibaato xagga ka jira Itoobiya waan imaada waan xaliyaa kolba wixii xagga maaragtay Somaliland ka jira kolba wixii ka jira kolba wixii Djibouti ka jira waan tagaa waana soo xaliyaa waxayna ku xidhan tahay kolba salaadiinta halka joogta inay la soo socodsiiyaan haday dhibi jirto sidaasaan walaal ku tagaa dadkayguna sidaasay ugu ogyiin igu taageersan yihiin ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas oo isagoo jigjiga jooga qadka telefoonka igu waramayay BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba hagaag haatana Itoobiya hay'adda amniga iyo sirdoonka qaranka dalka Itoobiya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay 11 qof oo ku howlanaa xatooyada telefoonada hay'adda sirdoonka Itoobiya oo warbixin qoraal u dirtay warbaahinta Fana loo yaqaano ayaa sheegtay xubnahan la qabtay inay sirdoonka in muddaaba ku raajoogeen iyagoo iyo qalabka iyo gacanta ku dhigeenba Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
warkan oo aan ka soo xiganay warbaahinta faana ee dalkaasi Itoobiya ayaa sheegaya 11 qof ay sirdoonka dalkaasi soo qabqabteen in ay si sharci darro ah ay uga shaqaysan jireen hawada Itoobiya. Warbixinta laanta sirdoonka Itoobiya oo ay warbaahinta faana soo xigatay waxaa lagu sheegay in ay wicitaanada telefoonada ee dalka Itoobiya soo gala amaba ka baxa in ay u adeegsan jireen nidaam ka baxsan nidaamka isgaarsiineed ee dowladda oo ay maamusho Ethio Telecom oo ah shirkadda kaliya ee bixiso adeegga isgaarsiineed ee dalkaasi Itoobiya oo ay dowladdu leedahay. Shakhsiyaadkaasi oo la sheegay in ay dalka Itoobiya adeegga telefoon ka bixiyaan aan wax fasaxna u haysan. Howlaha shakhsiyaadkaasi la qabqabtay ay qabanayeen oo dhanna waxay laanta sirdoonka ay ku tilmaantay inay ahaayeen kuwa sharci darro ah sida lagu sheegay warbixinta laanta sirdoonka Itoobiya ay baahisay warbaahinta faana. Waxaana xubnahaasi sidoo kale lagu haystaa in ay si sharci darro ah dalka u soo geliyeen qalab isgaarsiin oo aan sharci ahayn. qalabkaasi oo ay ka mid yihiin 11 simbox oo adeegga isgaarsiinta loo isticmaalo 26 tiplink 1339 sim card oo kuwa telefoonada ah 20 flash disk oo kuwa xogaha lagu qaato iyo 12 kombiyuutar oo laptop ah iyo qalab kale oo dalkaasi Itoobiya sharci darro ka ah in uu shakhsi gacantiisa galo. adeegga isgaarsiin ee shakhsiyaadkani laanta sirdoonka dalkaasi Itoobiya haatan soo qabteen ay bixinayeen waxay shirkadda Itoobiya ee adeegga isgaarsiineed bixisa Ethio Telecom la sheegay inay sanadkii ku waayi jirtay dakhli ka badan 4 milyan oo dollar. aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Jabuuti dalka Jabuuti waxaa maanta loo fariistay imtixaanaadka shahaadiga ee lagu galayo jaamacadaha iyadoo sanadkan dalka Jabuuti viruska corona dartiis waxbarashada lagu qaadanayay qadka online-ka. arrimahan iyo sida loo galayo imtixaanaadka maanta dhacaya ayaa waxaan wax ka weydiiyay agaasimaha wasaaradda waxbarashada ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Cabdi Dirir Giire. imtixaanka loo fadhiisanay maanta waa imtixaanka shahaadada loo yaqaano baccalaureate ee lagu galo jaamacadda. waa imtixaanka lagu galayo jaamacadda. waa imtixaanka lagu galayo jaamacadda. imise arday baa u fadhiisatay maanta imtixaankaas? maanta imtixaankaasi Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa u fadhiistay arday cadadkooda 10,000 oo arday oo u kala baxo 8,219 arday oo imtixaanka loo yaqaano baccalaureate general 1,334 loo yaqaano shahaadada baccalaureate farsamada gacanta 327 loo yaqaano baccalaureate carabiga. marka waa imtixaanka shahaadiga ah ee ardadu ay jaamacadda ku aadayaan hadday ku guuleystaan imtixaankaas. waa sidaa weeyaan Cabdoosh, waa sidaa weeyaan. waxaan ognahay cudurka corona inuu si xun u galay Jabuuti oo dad badan uu saameeyay waxbarashadiina uu saameeyay maadaama maadooyinkii sidii ay ahaayeen aanan loo qaadanin ardayda ay online wax ku baranaysay kalsooni intee la eegad ku qabtaan ardadu inay u bisil yihiin imtixaanka ay maanta u fariisteen. والله رجو وين كلسوني بقول كيف بقول أدو بحنا فقمنا وهي وزير كتعليمتا إيو حرفدا مصطفى محمود جمهورية جيبوتي وكنت لدلي أرديدا أونلاين كلك كودكتان 10 كودا بشان إما كان كجرنين ما أنت قبل تاجن وحلو قالي إن أرديدا يكسر نقدان دوكسيدي سيت أفر تضمات لوسي حوجيو وعبرشود دي يكسر ميني أونلاين كا ودوكا وقعد هذا 10 loo jilciyo ardayda kolka bisha imika aan ku dhex jirno ardaydu dugsiyada ku soo noqdeen casharka waxay u dhigaynayeen sidii ay covid ka horteed bay u dhiganayeen casharka kolka rajadaydu aad bay u sareysaa waayo waxa weeyaan ardaydu waxay ka participate waxay ka qayb galeen inay helaan waxbarasho online iyo waxbarasho isku daily tiran oo loogu talagalay inay bisha uudna ay dib u eegaan wixii cashar ay dhigteen. kolka waxaan leenahay rajada maanta ka qabno tii awal bilaa covidka tuka fiican inaan galnaan ku tala jirnaa hadduu ilaahay dhaho. agaasime ka waran xagga ilaalinta in si habsami leh imtixaanka loo sameeyo oo qash iyo wax isdabamarin iyo ma laga taxadaray? waxa weeyaan inta xagaag oo dhan wasiirka tacliinta Mustafa Maxamed Maxamuud wuxuu programka dhigay si imtixaanadaasi si fiican ugu dhicayeen. waxay imtixaanadaasi ka dhacayaan sida liiseeda dugsiyada liiseeda Djibouti liiseeda Balbala liiseeda Odan iyo liiseeda Gabood iyo kambiska jaamacadda. kolka waxa weeyaan waxa lagu talagalay in arday kastaba halka ay ku marayaan macallimiintii ilaalada loogu talagalay in sida kursi kastaba ilma loogu talagalay si hab wanaagsan oo qurux badan ay ugu dhacdo imtixaanka baccalaureate. liisheega waxa loo jeedaa dugsiyada sare
dugsiyada ay ardaydu ku dhigtaa intayna baaga aadinay jaamacadda aadin agaasime imtixaankii maanta la gelayaa 10 kun oo qof baad sheegtay inay u fariisan doonaan xagga taxadarka ka waran ardada ma la kala fogeeyay maaskii afka iyo sanka lagu xiranayay ma wataan gacmaha ma loo dhaqayaa bal ka waran xaggii taxadarka fayraska corona habkii gacmaha lagu dhaqayo kalkastoo u soo galaan dugsiyada habkii maasku waa obligato maasku waa muhiim ilma ma gari karay taxaanka asagoona maaska sidin macallimiinta kalkaaliyaasha kuwa ilaalinayo oo dhan ayaguna waa in maaska sitaan waxaa loogu tala marka ardayduna ninba kursi buu fadhiisanayaa kursigaana waxaa u kala dhaceeya in la gaadhayo isbaaso mitir ilaa mitir iyo balac agaasimaha wasaaradda waxbarashada Jabuuti Cabdi Dirir Giire ayuu kaasi ahaa halka wali aad nagala socotaan waa BBC barnaamijkeena dunida iyo maanta ee galabnimo ayaan bartanka kaga jirnaa anigoo Atoosha ayaa idaacadda idin daadiheynaya haatanna Turkiga waxa uu goodiyay oo waliba digniin culus u jeediyay midowga Yurub madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa ka digay in Turkiga uu wajihi doono cunaqabatayn haddii uu sii wado ficilada gardarrada ee bariga badda Mediterranean-ka ay ka wadaan waa sidoo hadalka u dhigay hadallada Borrell ayaa yimid kadib kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub sarkaal reer Yurub ah ayaa isna waxa uu sheegay in dareen kacsanaan leh ay ka soo korortay ficilada Turkiga Cabdiqaadir Yuusuf Caaqilka ayaa faafaynta warkaasi inoo haya hadallada Borrell ayaa yimid kadib kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub sarkaalkan reer Yurub ayaa sheegay inuu ka hadlayo ficilada sii kordhaya ee Turkiga ayaa gaas ka baaraya biyo ay Greega iyo jasiiradda Khubrus aaminsan yihiin in iyagu leeyihiin talaabooyinka soo socda ee midowga Yurub ayaa u badan tahay in looga wada xaajoon doono shir ay wadamadan yeelan doonaan oo dhacaya 24 bisha Sebtembar ee fooda inagu soo haysa waxaana talaabooyinkaasi looga gol leeyahay in lagu xakameeyo awood Turkiga ee uu ku baadigoobayo gaaska dabiiciga ah ee biyaha la isku haysto wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa mowqifkeeda midowga Yurub u aragta mid aan sax ahayn waxayna gaashaanka ku dhufatay sheegashada Greega ee xuquuqda badda Mediterranean-ka afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga oo lagu magacaabo Hami Aksoy oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in midowga Yurub aysan marnaba xaq u lahayn inay dhaleeceeyaan howlaha batroolka ee ka socda gudaha dalka Turkiga waxaana ka dalbaday inay joojiyaan waxa uu ku tilmaamay faragelin qaawan Borrell iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa carabka ku adkeeyay in midowga Yurub uu doonayo inuu siiyo fursad wada hadal ah si loo xakameeyo xiisadda u dhaxaysa Greega iyo Turkiga oo labaduba xubno ka ah gaashaanbuurta NATO Turkiga iyo Greega ayaa ku loolamaya kaydka gaaska isla markaana waxay isku khilaafsan yihiin cidda xaqa u leh goobo muhiim ah oo ku yaala bariga badda Mediterranean-ka waxay ku muransan yihiin goobo cayiman oo dal walba uu sheeganayo inay dhulkiisa ka tirsan yihiin Greega ayaa waxa uu ka tirsan yahay midowga Yurub oo haatan doonayo in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka labada dal hase yeeshee Faransiiska ayaa u muuqda inuusan khilaafkaasi dhexdhexaad ka ahayn oo waxa uu mar sii horeysay dowlatus military la sameeyay Greega Turkiga ayaa isniintii ku dhawaaqay inuu sii wadi doono baaritaanada saliidda ee uu ka wada badda hadalkaasi ayaa waxa uuna ka careysiiyay Greega oo baaritaankaasi uu arko mid sharci darro ah xiriirka Turkiga iyo Greega ayaa xumaaday dhowr goor oo hore 10 sanadood ee la soo dhaafay kadib markii ay isku khilaafeen jasiiradda Giyan labada dal waxyaabaha kale ay ku muransan yihiin waxaa kamid ah muhaajiriinta ka soo gudbaya dhanka Turkiga ee u soo talaabaya Greega ayaa sidoo kale aad uga naxay kadib markii madaxafkii Xaajiye Sofia ee ku yaalay Istanbul loo bedelay masaajid Cabdiqaadir Yuusuf Cali Caaqilka aad baad u mahadsan tahay haddaba hanjabaadahan midowga Yurub waxa ay isku hayaan labada dal ayaa waxaan wax ka weydiinay Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo degan Jarmalka aadna ula socda arrimahan wuxuu u waramay Xasan Sheekh Cumar Cismaan colaadda Turkiga iyo Greeg horta mid cusub ma aha waa mid muddo dheer soo jiitamaysay ilaa qarnigii 19aad qarnigii 20aad iyo hadda intii ka dhaxayso dhowr jeer ayaa colaadi dhex martay hadda tan u dambeysay waxay ka dhalatay markii Turkigu uu sahamin ku bilaabay oo gaas iyo shidaalba uu ka baaro jasiiradaha uu leeyahay ee ku dhow dhinaca Greega markii colaadda hadda taasi ku salaysan tahay laakiin tension waxa iska jiray weligiisba muddo dheer soo jiitamayay in ka badan 150 sanadood ku dhow meelaha soo socday oo labada wadan colaadi ka dhaxaysay
waxyaabaha laysku haysto oo laysku mari la'yahay ilaa hadda waxaa ka mid ah jasiiradda qubrus oo mujtamac labada dhinac ka tirsanay degan yahay marar badan baa laysku maandhaafay tan hadda laakiin waxay ku qotontaa dhaqdhaqaaqa dowladda turkiga ay ka bilowday badda mediterraneanka qaybta iyadoo ay leedahay iyo wadanka Greega oo runtii aad uga xumaaday dalalka midowga Yurub hadda waxay ku hanjabeen cunaqabatayn marka maxay noqon kartaa cunaqabatayntaas siday sheegeen hadda kulankoodii maalintii Jimcadii ee shalay ka dhacay magaalada Berlin waxay sheegeen inay target garaysan doonaan shakhsiyaad martabad sare ka hayo dalka Turkiga sidoo kale waxay sheegeen in maraakiibta Turkiga loo diidi doono ama laga horjoogsan doono inay ku soo xirtaan dekedaha qaaradda Yurub sidoo kalena ay suurtagal tahay in cunaqabatayn ballaaran oo xagga dhaqaalaha lagu soo rogo wadanka Turkiga sida ayay sheegeen golaha wasiirada ee Yurub kulankoodii ay ku yeesheen magaalada Berlin maalintii shalay ee Jimcada ahayd hadiiba midowga Yurub uu ka dhabeeyo tallaabadaasi oo Turkiga uu ku soo rogo cunaqabatayn maxay u dhimi kartaa Turkiga dhaqaalihiisa iyo guud ahaan dalka Turkiga waxbay u dhimi kartaa maxaa yeelay wadanka Turkiga xiriir dhinacyo badan oo xagga dhaqaalaha la xiriiro iyo arrimaha bulshada iyo xiriiro waaweyn ama xiriiro aad u tiro badan ay leeyihiin wadamada Yurub waxa wadamada Yurub ku nool mujtamac ballaaran oo Turki ah wadankan Jarmalka oo kali ah waxa ku nool in ka badan 5 milyan oo Turki ah oo wadankooda ku xiran oo dadkooda ku xiran sidoo kale ganacsi ballaaran ayay leeyihiin Yurub oo dhan wadanka Turkiga marka hadii cunaqabatayntan ay hirgasho runtii dhaqaalaha wadanka Turkiga in wax weyn soo gaarayaan ayaa muuqato that is why ay wadamada Yurubna ay u doorbidayaan ama ay u handadayaan dowladda Turkiga inay ka noqoto dhaqdhaqaaqyadeedaas ay ka wado badda Mediterraneanka ama xuduudaha u dhow dalka Greega madaxa arrimaha siyaasadda dibadda ee midowga Yurub iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka labaduba waxay sheegeen in midowga Yurub uu fursad siinayo Turkiga iyo Greega si ay u xalliyaan xiisadda ka dhex taagan arrintaas suurtagal ma tahay waa suurtagal in la qaboojiyo xiisadda walow hadda qolo waliba ay meel ku dhagan tahay oo wadanka Turkiga uu leeyahay anagu xaqeeni ayaan ku taaganahay oo sharciyadeeni iyo xuduudaheeni ayaan ku egnahay dowladda Greeguna ay arrintaas cabasho ka muujinayso oo ay wadamada Yurub ay iyadu member ka tahay ama ay xubin ka tahay ay u dacwootay ayadoo dareensan in lagu soo xadgudbay laakiin wax walba waa suurtagal waxayna u dhowdahay in xiisadda la qaboojin doono cabdiqaadir maxamed axmed oo arrimaha Turkiga ka faalooda Jarmalka ayuu joogaa xasan sheekh Umar ayuu u waramayay waa hagaag haatana sheeko la yaab leh oo haddana xiiso leh Elon Musk oo kamid ah maalqabeennada dunida ayaa sheegaya inuu ku fikirayo inuu sameeyo aalad yar oo chip ah oo akhrin karta maskaxda noolaha ajiib Ahmed Mursal ayaa soo akhriyo ila fadhiya Ahmed oo bal sheekada nooga dhac catosho mahadsan tahay catosho sida aad la socotid Elon Musk waa mulkiilaha sharikadda saamiyada ee Tesla loo yaqaan waxa uu kamid yahay sida aad xustayba ragga ugu hodansan dunidan waana nin hal abuur badan oo wax isku day badan waxa uu haatan shaaca ka qaaday qalab ama aalad yar oo markaasi chipka computerka la eg oo ku tijaabiyay doofaar weyn oo markaa lagu magacaabo Gertrude waxa uu sheegay in chipkan catosho ama aaladan yar ay akhrin karto sida xustay waxa ku jira maskaxda doofaarkaas ayadoo markaasi lagu ogaan karo qorshaha uu damacsan yahay iyo waxa uu markaa ku fikirayo doofaarkan sida uu sheegay Elon Musk qalabkan yari waxa uu markaasi faragelin ku sameyn karaa maskaxda noolaha oo markaa uu dhexgali karaa asagoo sidoo markaasi sida uu sheegay akhrinaya waxa noolaha maskaxdiisa ka guuxaya waa gartay marka hadda doofaar baa lagu tijaabiyay bini'aadamkii goorma lagu tijaabinayaa dabcan bini'aadanka iyo xayawaanaadka kaleba noole isku yihiin marka mar haddii doofaar maskaxdiisa la akhriyay waxa ku xigi doonta marka in aadanihii la akhriyo catoshow adigana marka la ogaado waxa maskaxdaada ka guuxaya adoo markaasi aan ba hadlin ama aan markaasi aan sheegin waxa dabacsan tahay ha marka arinta yaab kale waxa weeye catoshow in haatan looba dhacayba maskaxdii noolaha oo la sii ogaanayaba waxa uu dabacsan yahay oo markaas uu ka sii fakarayo marka qorshihiisa waa la sii helayaa marka adiga su'aal ku weydiiyay hadii haatan la yiraahdo qalabkaasi yaad ku tijaabin lahayd maskaxdiisa oo markaasi horta adaan kugu tijaabin lahaa hay marka hadaad ogaatid in waxaan ku fakarayo marka maxay yeeli lahayd طبعا وان كو اوغاhay in lacagta jecel baa tahay bal qabeen noqoto Bashir baa la fadhiya oo daqiiqada kadib warkii noo akhrin doona Bashirow aalada fadhi hadda madaxaaga lagu xiro hadda waa sakan kan hadda aad nala fadhido alla maxay wax badan ka guuxayaan wali waxa tasho taa ka daran
ragga damacsan inay qoysas kale ama xaasas kale ama waxyaabo kale shukaansanaya haddii maskaxdooda loo dhaco balka war loo dhaco oo la sii sheego walla rag badan baa fashilmi lahaa aniga aan ku jiro waa hagaag aad baad u mahadsan tahay Bashiir baa hadda soo galay daqiiqada kadib ayuu warka akhrin doonaa waxaan Catasho aan ka dhex galo raalli ahow arrinta kale xiisaha leh waxa weeye Elon Musk waxa uu leeyahay kuma eka kaliya in la akhriyo maskaxdii oo la ogaado wuxuu ku andacoonayaa in chipkan yar ama aaladan yar ay markaasi akhrin doonto oo loo adeegsan doono in lagu daaweeyo xaalado caafimaad oo asaasigu ama gabowgu uu ka mid yahay iyo waliba ay markaasi loo adeegsan doono in lagu daaweeyo dhaawacyada buu yiri soo gaara laf dhabarta aad baad u mahadsan tahay Axmed Mursalo toosiile fadhiyay ayuu kaasi ahaa waxaad weli nagala socotaan barnaamijkeennii dunida iyo maanta Facebookga bbcsomali.com iyo waliba FM-yada magaalooyinka qaar Afrikada bari saacadu hadda waxay ku taagan tahay 5:29 daqiiqo iyo 40 second warkii caalamka iyo Bashiir iyo mar kale dowladda Belarus ayaa ruqsad shaqo kala noqotay ku dhawaad 10 wariye oo ka howlgalay gudaha wadankaasi wariyaashaas ayaa waxaa kamid ah kuwa u shaqeynayay hay'ado warbaahin oo caalami ah kuwa kale maxalli ah wariyaasha ruqsadda lagala noqday waxaa kamid ah kuwa ka tirsan wakaalada wararka ee AP television laga leeyahay wadanka Jarmalka iyo laba wariye oo ka tirsan BBC-da kuwaas oo shaqeynaya laanta Ruushka talaabadan ayaa waxaa ambaariyay wasiirka arrimaha dibadda ee Austria BBC-duna waxa ay sheegtay in ujeedada laga leeyahay arrinkan ay tahay sidii loo hor istaagi lahaa saxaafadda madax bannaan ciidamada booliska wadanka Sweden ayaa xabsiga u taxaabay dad gaari 20 qof kadib markii dibadbax ballaaran oo ka dhashay kitaab quraan oo la gubay falkan ka dhacay magaalada Malmo waxa lagu soo waramayaa in rabshadahaasi ay ka dhasheen khasaaro baawur badan dab la qabadsiiyay baawurta dabdamiska ay kuwa gurmadka degdega ayaa sidoo kale la burburiyay waxaana dawladdu ay sheegtay in 300 oo dhalinyaro badan ay ka dambeeyaan rabshadahaasi dowladda Turkiga waxay sheegtay in ciidamada badda ee wadankaasi ay dhulatus ku sameyn doonaan bariga badda Mediterranean-ka xilli ay taagan tahay xiisad ka dhalatay gaaska iyo saliidda dalkaasi uu doonayo inuu soo saaro dhulatuskan oo ah mid socon doona muddo 2 toddobaad ah ayaa la sheegay inuu ka dhici doono waqooyiga galbeed ee Khubrus halkaas oo dowladda Turkigu ay muddooyinkii dambaba ka sameynaysay sahan shidaal oo ay ku kala boodeen wadanka Gariga madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa uga digay Turkiga inuu wajihi doono cunaqabateyn haddii uu sii wado waxa uu ku tilmaamay ficilada gardarrada ah ee uu ka wada badda Mediterranean-ka ugu dambeyn madaxweynaha wadanka Imaaraadka Carabta Sheikh Khalifa bin Zayed ayaa soo saaray dekreeto madaxweyne oo lagaga noqonayo xayiraad ganacsi oo muddo ka badan 20 sano saarneyd Israel talaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalada labada dal ay ku doonayaan inay ku soo nooleeyaan xiriirka diblomaasi ee ka dhaxeeyay ujeedada talaabadan ayaa hogaamiyaha wadankaasi waxa uu ku sheegay in ay tahay mid sare lagu qaaday iskaashiga ganacsi ee ka dhaxeeya labada dhinac warkii caalamkana waa naginta aad buu u mahadsan yahay Bashiir Maxamed Maxamuud Caato oo warkii dunida mar kale noogu rogaal celinayay Hargeysa ganacsade Soomaaliyeed ayaa ka faala qaaday waxbarashada 100 kamid ah dhalinyaro mid kamid ah ka soo jeeda mid kamid aan iraahde beelaha la hayb soco ee ku dhaqan magaalada Hargeysa bulshada ay ka soo jeedaan dhalinyaradan waxbarashada la siiyay ayaa kaalmadaasi ku sheegay inay tahay fursad aan horay u soo marin wariyaha BBC-da Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan amurtaasi ku saabsan Hargeysa ka soo diray dhalinyaradan fursadaha waxbarasho la siiyay ayaa ugu horreyn loo bilaabayaa aqoonta diiniga intaasi kadib aqoonta maadiga ah oo ilaa heer jaamacadeed ah waxa dhaqaalaheeda ka bixinaya ganacsadahan go'aanka ah in 100 arday la kafaalo qaado oo waxa weeyaan dhinaca waxbarashada laga dhisaa horta waa go'aan culus fulintiisuna ay aad u hawl badan tahay runtii oo aan anagu turta ku qaadanay dhinaca shirkadayada marka hore waxaan shirkad si joogto ah wax u bixisa haddaad xasuusato burco wanaga ambalaasta geynay masaajidda aanu dhismayaashooda ka qayb qaadanay baa jira sadaqooyin joogto oo aan mar walba bixino iyo waxtar bulsheed baa jira marka waa wax dhinaca waalidka ka yimi oo waxa weeyaan dhinaca barbaarinta waalidka iyo waxa weeyaan wada waalidkii shirkadan bilaabay uu ku dhaqmi jiray oo aan anagu dabaqnay weeyaan liibaan cali ismaaciil oo kamid ah mulkiilayaasha shirkadda ganacsiga ee Cali Garle Company ayaa iiga warramay sida ay ugu dhalatay bixinta deeqdan waxbarasho ee ay dhalinyaradan ay ugu talagaleen dadka la haybsooco waa kuwa ugu yar ee hela fursad ay wax ku bartaan marka laga reebo qoysaska barakacayaasha ah ee daafaha magaalada degan dadkani waxa weeyaan haybsooco waxa weeyaan waa dhaqan aad u adag dhaqanka waxaan aaminsanahay waxa qura lagu jibin karaa inuu yahay in dadkan wax la baro oo taageeradan afka ah loogu bedelo mid wax qabad markaas
bulshadu isa soo gaadho ayuu waxa weeyaan haybsooca iyo takoorku meesha ka baxaya annaguna si aanu taa u dhaqan gelino oo aanu waddo wanaagsan u furno oo aanu waddo khayriya u furno waxaanu kafaalo qaadnay in dadkaas boqolkii arday ee ugu horreeyey aanu waxbarashadooda annagu tuurta ku qaadano ka shirkad ahaan iyagu magaalada way dhex degan yihiin laakiin duruufo dhaqaale oo haysta ayaa u saamaxi waayey sidoo kalena dadaal xukuumadeed iyo ku shacab midna lama gelin taas ayaana u sabab ah inay yar tahay tirada ubadkooda ee waxbarata maxamed ismaaciil oo ka mid ah aasaasayaasha akademi ay sameeyeen dhalinyaro beeshan ka tirsan oo ay ugu talagaleen in uu ka shaqeeyo horumarinta dadkooda ayaa iga warramay muhiimadda ay leedahay kaalmada waxbarasho boqolka arday ee bixisay shirkadda Carigalle Group waxaa ka mas'uula oo gacanta ku haya akademiyada horumarinta iyo wacyigelinta dadka laga tirada badan yahay ee Adam Academy oo waxa weeye u xilsaaran qaybintooda iyo macallimiinta la xisaabtankooda iyo roolka ee akademiyadu leedahay inay ka qaadato oo shirkadda Carigalle Group iyo waxa weeye ardaydan iyo macallimiinta waxa u dhaxayn doonta akademiyada u dhaxayn doonta akademiyadu waxay qaybisay boqolkii arday ee ahaa scholarshipka waxa u qaybisay 6 malcaabadood ama 6 madrasadood oo ku yaala waxa weeye xaafadaha deegaan dadkan danyarta ah gaar ahaan Daami iyo xaafadan Hawlwadaag madrasadaha waxaan ugu qaybinay al-Ikhlas oo waxa weeye madrasadaha ugu waaweyn xaafada kamid ah waxa la siiyay 30 arday Daarul Huda waxa la siiyay 15 arday Markisul Aflah waxa la siiyay 20 arday Daarul Mubarak waxa la siiyay 10 arday Daarul Albayaan waxa la siiyay 10 arday Markisul Musalman waxa la siiyay 15 arday marka sidaas feerka baan u qaybinay marka laga yimaado guud ahaan akademiyada iyo waxyaabaha ay qabato boqolkan arday waxay noqon doonaan boqol arday oo tacab iyo waxa weeye taakuleen far badan la gelin doono macallimiinta waxa weeye malcaabadaha waxa weeye ama madrasadaha dhigana waxa weeye akademiyada la xisaabtami doonta oo bil kasta iyo waxa weeye quarter kastaba waxa la gelin doonaa audit ah macallimiin ardayda heerkooda waxbarasho halka ay marayaan kobcooda waxa weeye waxbarasho waxa weeye maxaan ku raday attendance waxa weeye ku soo xaadiraan waxa weeye malcaabada waxa nidaam noocaas waxa weeye hadii la waxa weeye lagu shaqeyn doonaa oo madrasadaha iyo akademiyada ku shaqeyn doonaan wax alla wixii xisaab celin ah kharashkan ay bixinayso ku kabayso waxa weeye shirkadda Carigalle Group waxa ka wada shaqeyn doona Carigalle Group iyo akademiyada ka wada shaqeyn doona oo waxa weeye xog dhameystiran ay dadku inta badan ku qancaan shirkaduna ku qanacdo ayaa insha Allah bismillaah kariim loo gudbin doona shirkadda hadii Allah wada leeyahay codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii Sadiiq Burmud Wargeysa ka soo diray hagaag hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa ku dhawaaqday inay dhimi doonto cunnada ay siiso qaxootiga ku nool bariga Afrika sabab la xiriira fayraska corona hay'adda ayaa 100,000 oo qof oo qaxootiga ku nool bariga Afrika bil walba waxay siiyaan raashinkii ay ku noolaan lahaayeen waxa qaxootigaasi kamid ah kuwa ku jira xerooyinka qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya iyagoo tallaabadaasi ay hay'addu ku dhimayso cunnada ay siin jirtay qaxootiga walaac weyn ka muujinaya Cabdullaahi Cusmaan Xaaji oo kamid ah hogaamiyaasha xerada qaxootiga ifo ayaa waxa uu sheegay in tallaabada WFP ay xaaladda sii murjinayso Cabdullaahi waxa uu u warramay oo wareysatay Samiira Cabdullaahi Jaamac saamayn xoog leh oo dhibaato adag keeni doonta ayna ka dhalan doonto macaluul adag oo ka daran xanuunkan hadda adduunku ka qayliyahay coronaviruska ayay sababaysaa adigu xirada qaxootiga ee ifaad ku nooshahay bal wax yar oo sharaxaad ma naga siin kartaa heerka ay dadkaasi qaxootiga ah ku tiirsan yihiin raashinka ay keento WFP Samiiro markaan dhab kuugu warramo annagu haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya gaar ahaan kaamkan Dadaab arrinta iyada ah waxa weeye saamayn xoog leh nagu yeelanaysaa waxaana ku tiirsannahay 50% waxaan ku tiirsannahay waxa ayna siiyaan hay'adahan qaramada midoobay gaar ahaan WFP raashinka ayna siisaan 50% ku tiirsannahay haddii la waayana xaalka anagu wuxuu noqon karaa ma aragtay mid aan laga soo waqsan karin oo ma aragtay raad adag ku reebta guud ahaan qaxootiyada Soomaaliya gaar ahaan kaamkan Dadaab marsi horeysay WFP 30% raashinka ay siin jirtay qaxootiyada hoos ayay u dhigtay taas saameynaydu kuma yeelan miya saameyn way nagu yeelatay mid waliba aan dareennay bay nagu yeelatay saameyn lixaad labayna nagu yeelatay 30% ka nalaga dhimay sababtoo ah raashinka nala siiya bishii 15 beri naguma filayn waxaanu samayn jirnay irsaaqada kale ilaahayna siiyo sabab oo ah xoogga anaga aan ku shaqaysanaano ku kaban jirnay 30% kaasi waxay dhalisay xitaa dad badan oo kaamka degan in ay ka farxadaan kaamkay yay dhalisay
ama familiyadii deganaa qaybo ka mid ah inay meelo kale u shaqo doontaan qaybana ay ma aragtay kaamka joogaan bay sababtay. waxaa kaloo sababtay baahidii markay badatay khilaaf qoysaskii wada joogay ahaabaa ka dhashay. haddii hadda boqolkiiba haddana 20 la jaro oo sidaa boqolkiiba 50 ay ku noqoto amaba wax ka badan la jarana waxaa ka dhalan karta saamayn xoog leh oo aan laga soo waaqsanaynin. taa iyada ahna waa xaqiiqo weeye. marka waxaan codsan lahaa UN-ku inay arrimaha ma aragtay ay taxadar dheeri ah ka sameeyaan, gaar ahaan WFP hay-adda la yidhaah ee raashinka bixiso. maadaama hadda ay digniin uun ay sii bixiso aysan si rasmi ah ugu dhawaaqin in ay joojinayso gebi ahaanba oo ama tiro guud aysan sheegin, sow lama dhihi karo waxay digniin u tahay dadka qaxootiga ama xeryaha ku jira ee isdhigtay WFP uun raashin ka sugaya halkii ay wax gooban lahaayeen. Samiro digniin way dhaaftay arrintan iyada ah. halis waaye, khatar soo food la waaye. macluul baa ka dhalan karta, sababi karta geeri, firxad baa ka dhalan kara in kaamka laga barakaco oo meelo aan macquul ahayn loo hayaamaa dhici karta. khatar walbaba ka iman karta. marka arrinta iyada ah waxaan ka codsanaynaa wadamada deeqaha bixiya in ma aragtay WFP laga soo caawiyo sidii ay qaxootiga raashin ku soo gaarsiin lahaayeen. xilligan lagu guda jiro corona jira oo dhaqaalihii iyo dhaqdhaqaaqii iyo deeq-bixiyayaasha laftirkoodaba saameyn ku yeeshay. marka ma dul qaadan kartaan miya muddadan dhibaatooyinka ay iska jiraan oo corona uu jiro? ma dul qaadan karo Samira. waxaanan u dul qaadan karin wadanka aan degannahay een xoolo kuma haysano oo dad xoolo leh oo sida deegaanka oo kale xoolo leh ma nihin, beero ma lihin, ganacsi maanta nagu filan oo ma aragtay baahidaanada dabooli kara ma lihin. cid kale oo ma aragtay aan ku tiirsannahay ilaahay ka sokow oo aan hay-adaha ahayn ma laha. suurtagal ma aha xataa 2 bilood ma sii joogi karo. suurtagalna ma aha raashinka een ma aragtay WFP haddii la joojiyo inaan kaamkan dhadhaabeed ku sii sugnaano waa wax ma aragtay aan macquul ahayn. cabdullaahi cismaan xaaji oo Samiir cabdullaahi jaamac u warramaya ayuu kaasi ahaa. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. xubintii ciyaaraha ayaa soo socotay, hayga fogaanina. balse haatan qodob kale. markii uu fayraska corona ka dilaacay caalamka ayaa waxa yaraaday waxyaabo badan oo dalalka ay dibadda ka soo dhoofsan jireen. tusaale ahaan Soomaaliya waxa la soo wariyay inay ku yaraatay qaar kamid ah qudrada dibadda laga soo waarido sida yaanyada oo laga keeno Kenya iyo Ethiopia. Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf, Cabdiraxmaan Sabriye oo kamid ah ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliya kulliyadda beeraha ayaa sheegay inay taasi ku dhalisay inuu hindiso in yaanyada uu ku beero caasimadda Muqdisho. maanta waxa uu leeyahay Cabdiraxmaan beer soo saartay yaanyo badan oo sida uu sheegay wax ka tartay baahida gudaha. cabdiraxmaan wuxuu arrinkaasi uga warramay cabdiraxmaan cali dhimbil. hawshan waxaa igu dhaliyey oo ujeedka ugu weynaa oo aan u sameeyey ahaa waktigii corona oo wadanka ka dhacay oo diyaaradihii iyo adduunyadii kala xirmatay ayaa magaalada waxaa laga waayey waxaa la yidhaahdo yaanyo simirsaan. marka maadaama aan ahay arday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka barta cilmiga beeraha ayaan waxaan go'aan ku qaatay inaan dhulkayga hooyo ku beero maadaama marka hore dibadda noogala keeni jireen. marka bal beerta maxaa ka baxa? waxyaalaha ka baxa maxay kala yihiin? waxyaabaha ugu badan oo beerta ka baxa waa yaanyada la yidhaahdo yaanyo simirsanta iyo qajaar iyo koosto. laakiin awooddeena anaga waxaan isugu geynay inaan beerno yaanyo simirsaan. sababta ugu weyn waxay tahay iyada waxaa markasta laga keeni jiray dibadda, gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya. maxaad kaga dooratay qudaartii kale inaad yaanyada beerto?
yaayadan inaan beero khudaarta kale waxaan kaga doortay khudaarta kale wadanka ay marka hore ka bixi jirtay laakiin anaga waxaan kamid nahay dadka ugu horeeyay magaaladan Muqdisho ku beero yaasimirsanta caqabad badan dadka ay ka haysatay oo yani waxa laga keenay jiray dibadda markasta anaguna marka maadaama aan cilmiga beeraha barano si aan u tijaabino ayaa waxaan ku beernay degmada Deynile magaalada Muqdisho marka bal intii beertan aad ku guda jirtay iyo hawshan caqabadihii ka hor yimi bal maxaa kamid ahaa walaal caqabadihii ugu badnaa ee naga hor yimid waxaa kamid ahaa magaaladan waxaa ku yar in horta seedska la helo ama meelaha la beerayay sidoo kale daawadii iyo waxyaabahaas ayaa magaalada ugu yaraa waxaa kaloo jiray in dadka aan la tashano ay ahaayeen dad kooban oo cilmigan nooga aqoon badan kaliya waxaan helaynaa markasta macallimiinta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wax naga barta oo ayaga unba kala tashi jirna marka dadka xaalariyaasha ku aqoontan iyo qaabka anagu aan wax u beerayno qaab urdun oo magaalada ku cusub ah ayaa kamid ah waxyaabaha nagu soo kordhay haddaad suuq u heshay xagee u suuq geysaa dabcan suuq waan u helnay markii hore wax dibadda laga keeni jiray haddana magaalada ka go'naa markaan soo saarnay dadku waa ina soo dhaweeyeen waa ina ku farxeen qiimihii lagu gubi jiray marka hore qiimo ka jabanna dadkii waan ku siinay weliba waa inagu duceynayaan ayagoo markasta noo sheegayana ku maasanna hawshana qabana arday baa tahay sidaad ii sheegtay beertiina waad ka shaqaysaa bal sidaad isugu miisaantaa labada hawlood ee waaweyn labada hawlood ee waaweyn waxaan isugu miisaanaa markasta anigu waxaan aaminsanahay mas-uuliyadii saaran inay jirto oo ay tahay inaan wax barto haddana dadkayga cilmiga yar ee anigu aan soo bartay jaamacadda ummadda aan ka bartay inaan dadkayga u adeego mas-uuliyadii saaran inay tahay baan markasta aaminsanahay sida ugu macquulsan oo aan maxaan ku yidhahdaa anigu markaas waqtiga ugu maareyn karan waan ku maareeyaa oo gelina jaamacadda ayaan aadaa gelina waxaa waaye beerta ayaan kusoo laabtaa aniga markaasi ka injineer waxyaabaha markaasi beerta lasoo gudboonaada hadday tahay cudur daawadiis iyo hadday tahay nadaafad markaas loo qabanayaba bal markaad eegto dhanka faa'iido la taaban karo ma ka haysaa oo ma tahay hawshani hawlaad kusii socon karto aad sii wadi karto mise waxaad is leedahay alxamdulilah aad baan ugu faraxsanahay hawshaan hayno waxaa weeye mustaqbalkeenan waxa ugu weyn wax ka qabsan doona waa beeraha iyo inaan wax beerno dadkanaan usoo seerno waxay u baahan yihiin marka waxaad leedahay faa'iido badan baa ku jirta oo hawshan waan sii wadayaa ahan fiican baan ka leeyahay sii waditaankeeda han fiican baan ka leeyahay ujeedka iyo sababtaan u dhaqdhaqaaqanana waxay tahay oo aan isleenahay waa inaad gaartaan markasto aniga waxaa iga go-an inaan magaaladan Muqdisho ku beer haddii la yidhaahdo khudaar kasta oo dibadda laga keeno oo maxaan ku yidhahdaa waddankeena ka bixi karta in magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waddankeenan kaa qabtirno aan ummadeena waddankeena wax ugu qabano una beerna ayaa iga go-an cabdiraxmaan xasan yuusuf oo u warramaya cabdiraxmaan dhimbilo BBC da ka tirsan hagaag haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo mawlid xaaji cabdi qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah kulanka xiisaha leh ee galabta dhex maraya Arsenal iyo weliba Liverpool warar ku saabsan ciyaaraha Mareykanka oo gudood ku jira Messi aabihiis oo sheegay kooxda laga yaabo inuu u saxiixo wiilkiisu Jurgen Klopp muxuu ka yiri warka ku saabsan in ay la soo wareegi doonaan ciyaaryahan Messi iyo weliba warar kale aan ku horeeyay tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa daboolka ka qaaday in ciyaarta galabta kooxdiisa iyo Arsenal dhex maraysa ee koobka Community Shield ay noqon doonto bilowga xilli ciyaareed adag oo horyaalka Ingiriiska oo waliba xalad leh koob dhaqameedkan ayaa fura u ah bilowga horyaalka cusub ee Premier League waxaana uu dhacaya 34 maalmood oo kaliya kadib markii uu soo dhamaaday fasal ciyaareedkii hore ee waqtigiisii la dheereeyay tababaraha Liverpool oo kooxdiisa horyaalka daafacanaysa ayaa farta ku fiiqay in aanay sidii ay ahayd u ciyaari karin iyadoo 2 asbuuc oo kaliya ay haysteen diyaar garow waxaase uu sheegay in aanay ahayn ciyaartani ciyaar saaxiibtinimo isla markaasna ay tahay ciyaar rasmi ah oo ay kaga soo horjeedaan Arsenal Liverpool oo xilli ciyaareedkii hore soo afmeertay 30 sano oo ay sugaysay horyaalka Ingiriiska ayaa ku dhameysatay 43 dhibcood oo ay ka sareysay Arsenal oo ayna koobkan ka qaaday Chelsea 4 toddobaad ka hor iyadoo tababare Klopp uu carabka ku adkeeyay in labada kooxood ay isku dayi doonaan inay guusha la hoydaan Liverpool waxaa la filayaa inuu u soo laabto daafaca birta ah ee goolkooda u difaaca Virgil van Dijk inkastoo dhaawac madaxa uu ka soo gaaray ciyaartii saaxiibtinimo ee talaadadii ay la lahaayeen kooxda Salzburg laakiin daafaca garabka midig Trent Alexander-Arnold ayaa maqnaan doona isagoo dhaawac qaba kabtanka Liverpool Jordan Henderson Alex Oxlade-Chamberlain oo qadka dhexe ka ciyaaraya daafaca kale Joel Matip
ayaa kulankani ka maqnaan doona Liverpool. xagga Arsenalna goolhaya Leno oo dhaawac jilibka qaba ayaa tababarka dib ugu soo laabtay, waxaana la filayaa in daafaca William Saliba uu ciyaartiisii ugu horeysay oo rasmi ah uu u safto kooxda Arsenal. kulankani waa kulankii afaraad ee koobka Community Shield oo ay isaga hor yimaadaan Arsenal iyo Liverpool. saddexdii hore waxay dhaceen 1979kii, 1989kii iyo 2002 iyadoo kooxda ka dhisan gobolka Merseyside ay guuleysatay labadii kulan ee hore, halka qorileyda ka dhisan waqooyiga London ay 1-0 ku qaadatay koobka sanadkii 2002. kulankani waa markii ugu horeysay ee Liverpool iyo Arsenal ay ku kulmaan garoonka Wembley ciyaar Community Shield ka tan iyo 1989kii. kulankaasi oo Liverpool ay 1-0 ku badisay, qaybtii hore gool uu u dhaliyay Peter Bresley. Arsenal 7 ka mid ah 9kii ciyaar ee koobkan Community Shield ka ay ciyaartay waa ay badisay, waxaana ka mid ahaa 3 ugu dambeysay oo xiriir ah oo ay qaaday koobkan. Arsenal oo la xarbinaysay 10 ciyaar oo aanay wax guulaha ka gaarin Liverpool ayaa taasi soo afjartay bishii July, markaasi oo 2-1 ay kaga adkaatay ciidanka Jurgen Klopp. waxaana Arsenal ay toosh afarqaad ah iminka ku doondoonaysa in markii ugu horeysay tan iyo bishii September 2012 ay Liverpool ka badiso 2 ciyaar oo isku xiga. marka laga reebo kulamada horyaalka Premier League, Liverpool ciyaarihii ugu dambeeyay ay ku ciyaartay garoonka Wembley ee caawa lagu ciyaarayo ceeb iyo fadiixa ayaa ka raacday oo 7 mar oo ay ku ciyaartay 1 mar oo kaliya ayay badisay, waxaana ugu dambeysay garoonkaasi oo ay ku badiso 2012 oo Everton ay kaga adkaatay ciyaar qayb ka ahayd kulamada afardhamaadka ee FA Cup-ka. laakiin Arsenal garoonkani wuxuu u noqday sida mid ay leedahay oo kale marka laga tago kulamada horyaalka Ingiriiska. 12 ciyaar ee ugu dambeeyay ee garoonkaasi ay ku ciyaartay 1 mar oo qurux ayaa laga badiyay, waxayna ahayd ciyaartii kulankii League Cup-ka oo 3-0 ay ku badisay, koobkiina ay ku qaaday Manchester City 2018. weeraryahanka Arsenal ay ku dhaaratay wiilka reer Gabon Pierre-Emerick Aubameyang min 2 gool ayuu ku dhaliyay labadii ciyaar ee ugu dambeysay ee garoonka Wembley, isagoo ka dhaliyay Man City iyo Chelsea. goolasha ciyaaryahan Arsenal oo ku dhaliyo garoonka Wembley Aubameyang waxaa ka badan Alexis Sanchez oo 5 mar shabaqa saray, waxaana uu la siman yahay Aaron Ramsey oo min 4 gool ay dhaliyeen. laacibka reer Senegal ee kooxda Liverpool oo ciyaartiisii ugu horeysay ee Liverpool uu ciyaaro kaga hor yimid Arsenal September 2014, wixii xilligaasi ka dambeeyay Arsenal macmiil ayay u noqotay oo shabaqooda baylaha ayuu u noqday, wuxuuna ka dhaliyay 6 gool. waa hagaag bal markana Messi ma laga yaabaa inuu yimaado garoonka Anfield ee kooxda Liverpool? arrintaasi waxaa ka jawaabay Jurgen Klopp. warbixintanna waxaa soo jeedinaysa Fartuun Ismaaciil. tan iyo markii laacibka reer Argentine Lionel Messi la shaaciyay inuu weydiistay kooxda Barcelona inuu ka tago, ayaa waxaa soo baxayay in kooxo badan lagu xiriirinayay. haddaba tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa meesha ka saaray in xidigaasi uu ku soo biiro naadiga ka ciyaara garoonka Anfield, waxaase uu sheegay in Messi uu aad ugu fiicnaan lahaa Premier League. mustaqbalka Messi ayaa muddo mugdi ku jiray, waxaana Klopp uu carabaabay in Messi aanu marnaba imaan doonin kooxdiisa. mar la weydiiyay in Messi oo 33 sano jir ah uu danaynayo, ayuu Klopp waxa uu ku jawaabay yaanu doonayn Messi in uu kooxdiisa ku soo biiro. da'du wax qiimo ah ma leh, laakiin si daacad ah haddii aan u hadlo, Messi waa ciyaaryahan wanaagsan. hadalhaynta ugu badan ayaa ah in Messi uu dib ula midoobi doono macalinkiisii hore Pep Guardiola oo iminka laylinaya Manchester City, arrintaasi oo Klopp uu sheegay in ay aad u caawin doonto kooxda ay sida weyn u xifaaltamaan. waa hagaag Fartuun, aad baad u mahadsan tahay. wararka ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa iminka si weyn u socda, iyadoo jaraa'idka iyo warbaahintuna ay si weyn arrintani uga faalloonayaan. haddaba aynu eegno Messi oo la hadal hayo in uu ka tagayo kooxda Barcelona. Messi xagee buu ku dambayn doonaa? haddaba wargeyska la yiraahdo L'Equipe ee dalkaasi Faransiiska ka soo baxa ayaa maanta waxa uu qoray war uu ku leeyahay wiilka Messi la yiraahdo aabihiis ayaa waxa uu u sheegay kooxda PSG in wiilkiisa 33 jirka ah uu u wareegi doono kooxda Man City.
warka ayaa waxaa intaasi ku daraya in wargeyska Marca ee ka soo baxa dalkaasi Spain isna uu qoray in Messi ka hor intii aanu Barcelona u gudbin warqadda uu kaga tagayo uu telefoon kula hadlay tababarihiisii hore Pep Guardiola arrintaasi oo dhacday Talaadadii waxaana la sheegay markaasi in uu u sheegay in uu doonayo in uu kula guulaysto Pep Guardiola Ballon d'Or oo markii lixaad ciyaartoygaasi uu horay ugu soo guulaystay warka wargeyska Marca waxa uu leeyahay wargeyska Marca intaasi wuxuu ku daray in Messi uu u sheegay Pep Guardiola in haddii uu doonayo inuu ku guulaysto Ballon d'Or ay tahay in uu isaga u yimaado oo uu ka ciyaaro garoonka Etihad Stadium dhinaca kale wargeyska la yiraahdo El Bardeshiqo ee dalkaasi Spain ka soo bax ayaa waxa uu qoray in madaxweynaha kooxda Barcelona Jose Maria Bartomeu uu diiday in uu kulan la yeesho Messi iyo erge ka socotay oo wada xaajood ku doonayay in laga yeesho arrinta ku aadan tagitaanka Messi waxaana la sheegay Bartomeu uu danaynayo in lacagta 664 milyan ee ganiga sterlinka ee ku xiran haddii Messi uu baxayo aanu wax wada hadal ka galayn waa hagaag wargeyska la yiraahdo Football Insider ayaa waxa uu wax ka qoray in kooxda Chelsea ay isku dayday in ay kooxda AC Milan kala soo wareegto goolhayahooda Donnarumma kaasi oo kooxda AC Milan ay leedahay haddii aad doonaysaa inaad la wareegtaan wiilkaasi 22 jirka Chelsea waa inay bixisaa 50 milyan oo ganiga sterlinka ah dhinaca wararka kooxda Chelsea oo lacag faraqaysa ayayna ku jirnaayeen wargeyska The Sun isna maanta waxa uu qoray in 80 milyan oo gani ay Chelsea miiska u saartay ciyaartoyga la yiraahdo Declan Rice oo kooxda West Ham u ciyaara haddii sidaas ay noqoto waxay noqonaysaa in Chelsea 250 milyan oo ganiga sterlinka ay bixisay in ay ciyaartoy kula soo wareegto wargeyska Goal maanta isna waxa uu qoray in tababaraha kooxda Barcelona uu xoojinayo doonistiisa ku aadan inuu kooxda Liverpool kala soo wareego ciyaaryahanka qadka dhexe ee isku wadanka ka soo jeedaan Jorginho Wijnaldum oo 29 sano jir ah wargeysada wadankaasi Spain haddii ayna ku sii socono wargeyska la yiraahdo Mundo Deportivo ayaa qoray in 28 jirka kooxda Liverpool uu ciyaara Sadio Mane ay dhici karto inuu ka tago kooxda Liverpool una ku biiro kooxda Barcelona oo iminka uu qabtay macalinkiisii hore Ronald Koeman oo hore ugu soo tababaray kooxda Southampton lama oga Liverpool inay ogolaan doonto in ay iska dirto Sadio Mane oo 28 sano jir ah waa hagaag imikana xagga iyo Mareykanka aynu eegno ciyaaraha kubadda kolayga dalkaasi Mareykanka iyo waliba tan kubadda cagta Ameerikaanka ayaa hakad ku jiray taasi oo ka dambeysay kadib markii kooxuhu iyo ciyaartoydu ay sheegeen in ay la safanayaan dadka madow oo la sheegayo inay xuquuqdooda dalbanayaan in wax laga bedelo isla markaasna kala kulmay dhibaatooyin kala duwan ciidamada booliiska arrintaas ayaa waxaan kala sheekaystay Cabdi Barkad oo ah garsoore kubadda cagta oo dalkaasi Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis degan isla markaasna ciyaaraha ka faalooda mawlido walaal sidaad ogtahay wadanka Mareykanka muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka jiray shaqaqooyinkaas oo la xiriiray cadaalad darrada tii ayaa hadeer saameyn ku yeelatay ciyaarihii todobaadkii hore waxaynu dhammaanteen ognahay oo aynu wararka adduunka ka maqalnay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin in lagu dilay nin madow ah oo ay boolisku ay dileen kaas ay ku dhufteen 7 xabadood oo magaciisa la yiraahdo Jacob Blake marka dilka dhibaatadii ka kacday ayaa saameyn ku yeelatay inay ciyaartoydii Mareykanka ee NBA-ga ama MLS-ka kubadda cagta kuwii ciyaarayay rag iyo dumarba dhammaan kuwii professionalka ahaa oo dhan in ay qaadacaan oo yiraahdaan ciyaarihii kama qayb galayno marka xiriirka kubadda cagta ee Mareykanka culayskaas ayaa soo food saaray culayskaasna waxaa isku dayay inuu dhexdhexaadiyo madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Obama inuu ciyaartoyda kala dhex galo waxaana ciyaartoydu rabaan in magaranaysa ay taageero u fidiyaan dhaqdhaqaaqa la yiraahdo Black Lives Matter ama dadka madowga ah noloshoodu wax ayay tahay la yiraahdo ay rabaan inay taageeraan sidaad ogtahay kaas oo wadamadan Yurub xitaa ku faafay oo markii laga soo noqday pandemiga ama magaranaysa xanuunka COVID-19 ka dhammaan ciyaartoyda Premier
league iyo kuwa kaleba ay u sameynayeen 1 daqiiqo oo aamusa ama ay xidhanayeen baajaj Black Lives Matter. Marka arrintaasi waa arrin jirta laakiin way iska dhamaan doontaa oo mulkiilayaasha naadiyada hadday tahay basketballka iyo haddii ay tahayba kubadda cagtaba dadaal ayay kaga jiraan oo ma rabaan in ay khasaaraan maadaama ay ciyaaraha la joojiyay xanuunka COVID-19 dartiis uu kooxaha dhammaantood u saameeyay dhaqaale xumo haddana ma rabaan inay tan kalena kusii noqoto carqalad marka waxay rabayaan in hawshaasi horaa loo dhameeyo laakiin ciyaaro badan oo la kansalay baa jira oo hadday tahay kubadda cagta iyo hadday tahay kubadda basketballka aba aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdi barkad oo ciyaaraha ka faalluuda qadka teleefanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayuu iigu warramayay. intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waa Mawlid Xaaji oo idinku dhaafaya nabaadiino. mawlid aad buu u mahadsan yahay gabagabadii idaacadda ayaan soo gaaray aan idin xasuusiya boggeena website-ka bbcsomali.com warbixin saacad ka hor aan soo gelinay ayaa waxa ay ciwaan u tahay wasiir ay dadkiisa u yaqaaniin digaagii gubtay fadlan maqaalkaasi dhowaan baan soo daawacnee adna nala akhriso barnaamijkii intaasaan ku soo qatimaya anigu Catoosh baan ahay Axmed Mursal iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cabdo ayaa barnaamijkaas wadi jiru soo saaray farsamada Mubaarak Cabdalla Mubaarak ayuu ahaa taniyo kulan dambe nabadgelyo.